السلام عليكم daawadayaal waxaan baranaa habka ugu fiican ee loo isticmaalo samgaaska taas oo badbaado u ah naftaada iyo waliba gurigaaga bal haddaba waxaynu wax ka baran doonaa habka la isku xidho haanta iyo shawlada tani waa haantii kan waa regulatorkii tanna waa beebkii ama tumbadii tanna waa shawladii waxaynu soo qaadanaa xidhiidhiyaha gaaska ama regulator adigoo ku soo qaadaya gacanta bidix waxaynu ku xidhanaa gaaska inagoo ku wareejinana gacanta midig inta aanad furin gaaska iska hubi saddexda meelood ee laga shidayo shawlada iskana ofgaree waxaynu isku soo shubanaa biyo taydh kadib waynu isku ruuxanaa xoorka ayaynu ku eeganaa inay gaaskii meel kale ka baxayso ha isticmaalin haddii aad aragto astaantan oo kale ee iska giiji sax sidaasay ku xidhan tahay gaaskii marka aad shidaso shawlada bushgaree una soo shid dhanka bidixda sida oo kale tanna bushgaree una soo shid dhanka bidixda haddii ay ku urto samgaas waa inaad si degdeg ah u xidhaa gaaska una hubisaa inay bakhtiisan tahay shawladu waa inaad furtaa daaqadda sidoo kalena furtaa albaabka si ay kaaga baxdo gaasku hashidin leydhka haddii uu bakhtiisan yahay hana bakhtiinin haddii uu shidan yahay samgaas waa hawl fududeeyaha nolol maalmeedkaaga guriga wixii faahfaahinaya intaasi dheer fadlan kala xidhiidh lambarka gaaban ee shirkadda ee 133